daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiila ee aan shaandhaysnayn sida nooga barateen maanta halkan waxaan idiga soo gudbinayaa barnaamij xasaasi ah waraaq dukumenti ah oo uu qoray ninkii Xaaji Ibraahim Cigaal oo uu u direeyay Djibouti nimanka degan ee Subera oo la yiraahdo support group oo macnihiisu ay tahay kooxda taageerada reer Djibouti-ga ah ee tujaarta ah ee Subera halkii ay doonayeen ila cirib tiro ama la dabar jaro nimanka la yiraahdo garxajiska anoo dib u dhigan doona faaladeeda iyo kashkaashkayga marka hore waraaqdiisiiba ay horta alla halkan oo authentication aanu ku soo sameynay aanu eegnay dokumentigaasi waqtiga la qoray inuu isagii yahay in kale oo isnoo cadaatay inuu isagii yahay 12 January 1995 ina Xaaji Ibraahim Cigaal waraaqdan horta alla ee uu qoray waxay ku socotay nimanka la yiraahdo Subera support group wuxuu ku bilaabay hadalkiisa waxa farxad ii weyn ah aan la soo koobi karaynin maanta inaan idigu wargeliyo ciidamadeena geesiyaasha ah ee soo majestayaasha ah waa ciidamada Subera inay jabiyeen nimankii calafaashushka ahaa ee federalismka doonayay dhammaantoodna laga saaray magaalada iyo airportka Hargeysaba waan hubaa inaad dareemaysaan gobonnimo weyn inaad maqashaan warkan aniga afkayga ka maqashaan anigoo madaxweynihiinii ah aan qof kale warkan idin soo gaarsiinin inta waxaan idigu darayaa oo ii daba taala ayuu yiri waxaan aad u dareemayaa oo xaggayga madaxnimo ah in ciidamadeenu ay dibadda nimanka u tuureen burburiyeenna khuraafaadkii lagu sheekaysan jiray garxajisku waa ciidad dagaalama oo dagaalyahana waxa kale waanu nimanka gaarsiinay dhaawac aanay dib uga soo kacaynin waxaanu baray 10 lama ilaawana waxaan kale waan idiga mahadnaqayaa sida hagar la'aanta ah ee aan noo soo taageerteen haddaydan taageeradiina aanan helinna wax midha ah may dhasheen dagaalkan aanu galay marka aanu eegno hadalkiina Cigaal ayaan wali idiisii wadaa oo hor yaala aan aqriyaya marka aanu eegno baaxadda uu lahaa weerarkan aanu qaadnay iyo dagaalka culayska uu lahaa labadaba inaga wax badan inagama soo gaarin 13 ayaa inaga dhintay sodonna way inaga dhaawacantay garxajis nimanka la yiraahdo cirkaasay isku shareertay geeridoodu taliye Muuse Biixi waa ninka meesha jooga dhaqankiisa taqaaneen waxa uu afka ku dhuftay oo igu yiri waxay u dhinteen sida duqsiga ayaan garxajiska aan u leeynay sida duqsiga ayaan garxajiska u leeynay ayuu igu yiri wuxuu kolonikaasi igu yiri buuri Muuse Biixi 580 weeye dhaawac iyo dhimashaba marka nimanka la isu geeyo 200 oo duqsi oo garxajisa ayaan dhulka dhignay 380 duqsina waanu dhaawacnay wuxuu intaa ugu daray 150 nin ayaanu ka qabanay oo uu ka mid yahay Cornel Xuseen Dheere ilaahay ha u naxariistee wuxuu kaloo u sheegay in niman fara badan oo saraakiisha dhexdhexa ah ay ku jiraan rag la qabtay xaruntoodiina gacanta ayaanu ku dhignay buu yiri wali hadalka waxa wataa ninka Muuse Biixi ee maanta meesheedii fadhiya sida duqsigeedii laayay wuxuu kaloo ku sii daray additionally waxa taa ii sii daba taalo uu yiri inay ciidamadeenu qabsadeen 2 taangi ama 2 dabaabadood 5 technique oo qoriyo saaran yihiin 10 madaafiicda goobta qoryaha yar oo tiro beelay iyo qoryaha dhexe rasaas intaaba gacanta ayaanu nimanka garxajiska kaga qabanay wuxuu intaa igu sii daray buu hadalkiisa isagoo sii wata Muuse Biixi in iminka la ugaarsanayo wixii ragaa ka hadhay lana qabqabanayo iyaga oo dib u gurasho xeer dagaal ku jira awlaad meesha idii taala ayay tusaysaa intaas waa falanqayn aan hayn kari waayay hadalkiina Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa inoo sii socda wuxuu yiri waxa aan aad u soo dhaweynaya oo ku faraxsanahay sida hagar la'aanta ah ee dawladeena ugu dhaliilaysaan ama in yar xagga dambe aan dib u ciirayna oo aragtaan inaan lacagtii aan noo soo daabacdeen wada gaarsiin kari weynay waa waraaqahan lacagta la inaga urursado lacagta laga hadlaya waa ogeydeen buu oo sababta aynu lacagtan u soo daabacnay marka horeba waxay ahayd 3 arrimood oo waaweyn inaynu ku gaarno arrinta koobaad inaynu kor u qaadno Janiska aynu leenahay in adduunyada kale ay Soomaaliland ictiraafto marka lacag gaar ah laynagu arko arrinta labaad oo ah nimanka la yiraahdo Subera halka ay ka istaagayaan caalamkan geeska Afrika iyagoo gacanta ku qabanaya ganacsiga
iyo dhaqaalaha dhammaan regionka oo dhan Somaliland maaha Soomaaliya oo dhan iyo sidii aynu gacanteena ugu soo ururin lahayn aynu waraaqaha ugu bedelan lahayn lacagta dollarka hard currency-ga taas oo inoo sahlaysa inaynu inagu maamulno dhammaan inta uu leeyahay regionku wixii la dirayo iyo wixii la dhoofinayo labada arrimood ee kale ee badeecada ah ee dahabiga aan gacanta usoo gelin lahaa subeer awal ee la yiraahdo xoolaha nool ee Soomaalidu leedahay iyo qaadka aanu qof kale u dirin ee inagu aynu u diro wali hadalkii baan idin wadayn cigaal arrinta saddexaad subeer awal inay noqdaan quwadda kaliya ee siyaasi ah quwadda kaliya ee dhaqaale gacan ku haysa quwadda kaliya ee ciidan leh Somaliland oo kaliya gudaheeda ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa deegaanka Soomaali degto oo dhan waa in Xaaji Ibraahin Cigaal ninka hadalkaaye waxaan rumaysanahay saddexda yool ama gool aan kor ku soo xusnay ciidamada ugu badan iyo waxa saddexda arrimoodba inaynu gaadhayno waqti dhow uma baahnidin inaad ka warwartaan haba yaraatee codadka inaga soo dhacaya magaalada Muqdisho ee General Aidid ilaahay u naxariisto iyo nimanka la xulafada ah sida Tuur Jaamac Yare iyo Ismaaciil Buuba iyagoo doonaya inay inaga dhinac isaga keen leexiyaan hawlahan aynu wadanana ay naga carshacarsheeyaan sida wayna Xaaji Ibraahin Cigaal ayaa weli sii hadlaya sida aan fahanay ninka la yiraahdo Cali Mahdi iyo groupkiisa SSA labaduba waa inay walaaqaan oo ay qasaan arrimaha Aidid uu doonayo inuu isku leexleexiyo lana qabto shir qaran Soomaaliyeed ay dib isugu yimaadaan taasoo inagana inagu soo casumay Aidid inaga oo matalayna Somaliland laakiin oo doroskayga in Xaaji Ibraahin Cigaal ba hadlaya oo doroskayga aan anigu oo dorosay arrintaasi waxa weeye ishaysashada koonfurta ama Muqdisho ka taaganay inay weligeed ba intay nool yihiin ay soo kor fadhiyaan oo ay haystaan oo aanay meesha dawladda inaga dhalanin wuxuu intay ishaysashada koonfurtu in Cigaal ba hadalkiisa sii wataa intay haysato koonfurtu ayadu isku mulaaqateen nibanin madaxa ka tooganayo waa inaynu laba jeer si laba laabnaa awoodeeni iyo xoogeeni aynu isku dayaynay waraaqahan aynu soo samaysanay ee lacagta ah inaynu ummadan meesha joogta ee xoolaha ah aynu u leynayno sida duqsiga inaynu dollarka iyo xoolahaba aynu kaga soo bedelano waxaan u gudbi doonaa waraaqda page-keeda labaad dhegeystayaal warqadda page-kii labaad ayaynu iminka u gudbaynaa waxaana yeeli doonaa hoosta comment-ka ayaan soo dhigi doonaa documentigan si qof waliba isagoo oo kii originalka ah ku akhrisan doona af Ingiriisi arkina doona waxa dadkan loogu talagalay xagga hore ee fiidiyogana waan ku bilaabi doonaa aynu gudubno hadalkiina Xaaji Ibraahin Cigaal baa inoo socda inagoo lugta ku walaaqayna wuxuu la hadlayaa groupkii subeer awalka ay tujaarta ahaa ee halkaa joogay inagoo lugta ku walaaqayna ganacsiga iyo badeecada waa labadii badeecadood waa xoolihii noolaa waxa laga hadlayaa iminka iyo qaadka labadaba reer ahaan gacanta ku qabsanayna ilaa iyo inta dawlad laga dhisayo Soomaaliyeed magaalada Muqdisho oo sharci ah oo lagu wada kalsoon yahay dadkuna ay isla ogol yihiin intaasi inta ay socotana lacagta aynu soo samaysanay iyada lafteeda ayaa sharciyoobaysa haddaynu arrintaa ku guulaysano wax dhibaato ah oo inaga hortaagan inaynu ku guulaysanayna ima muuqato arrintaasi waxay ina gaarsiin doontaa haddaynu nahay subeer awal inaynu inagu u yeedhino ummadda kale meesha ku nool koonfur iyo waqooyiba hadday dhaqaale tahay iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday xoog tahayba dhammaan say doontaba ha ahaatee ee waxa aan hubaa waqtigan iminka aynu joogno waa hadalkiisii baa socda inaad dhammaantiin ogtihiin maanta Soomaaliya xaaladda ay marayaan in dadkaasi dad baahan oo baaba'ay ay yihiin ummadda Soomaaliyeed marka aynu mar walba inagu lacag sii dhaqano aynu waraaqaha lacag ku bedelano aynu dadkan ka xayuubino meesha inoo jooga duqsiyaasha aynu lacag dhaqano mar walba waxaynu helaynaa taageero aynu inagu madax ka nahay waxa kale oo muran doonta ah hadalkiisii baa socda ayuu colaadda iminka Soomaali haysata ay maanta ku dhex jiraan inagu inaan marnaba aqbali doonin in wax la inoo yeedhiyo xooga aan idin samaynayo aan iminka idin abuurayaana wuxuu noqon doonaa xoog ummadda oo dhani meel kastaba ha deganaatee ay cabsi ka qaadi doonto hadalkiisii baa weli sii socda waa in Xaaji Ibraahin Cigaal markuu madaxweynaha ka ahaa Somaliland ee uu dagaalkii Maria Aroor ku socday hadalkiisii wuxuu yiri sida ogeydeen aan hore idigu sameeyay wan markaa tujaarta abu la hadlaya in aan cashuur idiga qaadin aan idinku cashuur la'aan wadanka wax ku keentaan
arrintaasi waxay ku dhammaanaysaa waqtigii aniga la doortay oo dhammaanaya. hase ahaatee waxaan doonayaa inaan sii kororsado waqtiga aan meeshan maamulayo. haddaan arrintaa ku guulaysto idina aa igu taageertaan, waxa aa hubtaan inaan mar labaad cashuur dhaafkiinii idigu sii wadayo sidii horeba aan cashuur dhaafka idigu sameeyey. waa erey baan u kor taaganahay hadalka ina Xaaji Ibraahim Cigaal way hortaallaa waan akhriyaya. wuxuu arrintaa cashuur dhaafka ah aan idii sameeyey waa ogtihiin hubaal waa arrin aad u xasaasiya. doonayna maayo maryaaloolka aynu ku dagaalgelayna ee bridgeka ah ee nala socda ee iyagaan cashuurta ka qaadaa inay ogaadaan waa samaroontii, waa arabkii, waa habar jecladii iyo ummadii kale oo oramada ee lasoo urursaday iyo ciidamadiisii aad bare ka hadhay, dadka lagu guurayey ee dagaalka la geliyey. intaasi waa faalladii aynu ishayn kari weynay. waxaa kaloo idugula talinayaa buu yidhi waxa aynu kala qaadanayno inaynu gacanta ku kala bedelino oo aan layna arag, waayo kuwa kale ee maryaaloolkii ma oga inaan cashuur dhaaf idii sameeyey. hadalkiisii baan soo wadaa. wuxuu yidhi gunaanadkii ninka hadalka gunaanadaya waxa weeyaan waa ina Xaaji Ibraahim Cigaal. telefoonkeennii isugu dambeeyey buu aynu ku wada hadalnay gruubkiinan Subeer Awal iyo anigu. waxaa laygu soo wargeliyey oo ii soo sheegay niman warkooda looga qaateenahi waddanka Jabuuti in telefoonadiina 24 saacadoodba la dhagaysto. arrintaasina arrinta xasaasiga ah aynu ka wada hadalno ee dowladda Somaliland iyo siyaasadeeda iyo plaanada aynu wadno ayay cawaraysaa oo layna ogaanaya. sidaa awgeed maanta laga bilaabo waxaan go'aan ku gaaray wixii dambe aynu ku wada xiriiraynaa inaanu noqonin telefoon. waxaan idin soo siin doonaa fax bahalka la yidhaahdo ee kan waraaqdan lafteeda uu ku daabacay aynu ka soo qaadanay. waa ogtihiin kaas ayaa inooga hawl yar oo ka quman oo aan la heli karaynin lana dhagaysan karaynin. waqti gaaban oo dhow waxaa heli doontaan tusaalooyin iyo bangi cusub, offshore bank account bangi oo aan dibadda ka soo furay. offshore bank waxa weeye bangiyada lacagta lagu qarsado ee wadamada dibadda laga furto ee aan cashuurta laga qaadin, yacni waa bangi suuq madow ah. sidaa ogtihiin kana warqabtaan horaan u ogeysiiyey arrintan Ibraahim Guuleed waa Ibraahim Dheere. Ibraahim buu halkan kula hadlayaa gaar ahaan. Ibraahimow, taageeradii iyo xoolihii aad noo dhiibtay mid lagama maarmaan ah ayay ahayd. arrintaasina waxa waajib nagu ah haddaanu Subeer Awal nahay inaanu biladgeesi kugu siino. arrintaa ayaana na caawisay oo keentay inaanu nimankaa jebino. haddaanan lacagta haynin maanaan jebineen. dowladdayduna adiga ayay dhabarka kugu haysaa. min fadlag lacagta aad siinayso ii sii wad oo hanaga kala goynin. wuxuu ku soo khatimay waraaqdiisii ina Xaaji Ibraahim Cigaal ilaaha weyni xoogeenna gacanteenna ha geliyo, aamiin. waxaad ii soo diray waraaqdan walaalkiin Ibraahim Xaaji Ibraahim Cigaal, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, madaxweyne Maxamed Ibraahim Cigaal wuuna saxeexay. halkaa waxaa idiga cad ummad yahay in beri hore la idii tashaday, la idiina yaqaano duqsi. ninka ammaanta keenteena 30 sano wixii la soo dhisayey ee loo dhisay dhitadeedii inuu cabayo. doorashadii u dambeysay ee inqilaabka ahaydna in Jabuuti lala aaday oo hore raggii kuugu soo diyaar garoobay ay mar labaad kugu soo diyaar garoobeen suuqa, mar labaadna sida duqsiga lagugu laayay, laguguna mashquulinayo hadalkii beenta ahaa ee munaafiqiinta ee dadka Somaliland iyo wadajir iyo isaaq iyo waa layna laayay. xaqiiqda jirtaana ay tahay tan ay ka dharagsan tihiin ee ninka maanta waddanka fadhiya ee Muuse Biixi la yidhaahda uu idiin yaqaano duqsi la laayay. ragga duqsiga lagu leeyahay waa Xuseen Dheere, waa Axmed Mire, waa raggii aa ogeedeen ee 5 magaalaba nin waliba ay 7 xabo kaga dhacday. halkii unbaa maantana la idiiga sii miisayaa. lacagtii la idigu kor samaystay ee aanu idigu soo celcelinaynay waatan in cashuur dhaaf ilaa maanta ay wax ku keenaan. weynamadiisii iyo walaaladii iyo islaamihiisii isna maanta uu soo kicinayo maadaama intii kale la soo kiciyey ee Subeer Awal. arrintaasi waxay idii xaqiijinaysaa wax la wada leeyayna inaanay jirin, wax doorasho ah oo soo socotaana ay jirin. siduu sheegayey dhaqaale iyo siyaasad iyo ciidanba inay reer gacanta ugu jirto. maryaaloolkii gacanta u geliyey ee arab lahaa ee samaroon lahaa ee habar jeclo lahaana ay maanta qaylinayaan, ay noqdeen bridge laga tallaabay oo doox rogmaday uun lagaga tallaabay, ayna gacanta u geliyeen waddankii. wax magaratada caqligeedu uu sidaa u fekerayo.
arrinta meesha taalla ee waajibka ah maanta waxa weeye in doorasho dambe oo beenbeera oo qilaaba aan la ina gelinin ee dhammaan sida aa maanta aragtaan oromada waa ka liidataan maqaamkiinu waayo oromadu waa niman isa soo saaray oo soo baxay jinka dagaagay ee siyaasiga idii sheegta ee waxaa marka la qorayey ag taagnaa waa waxa maanta meesha idii wada tuban ee magacyada la baxay rayaale dhimasho unbuu meeshan ku yimi oo ku dhaxlay ee looguma talagelin ee waxan waa wax xidhan oo u xidhan reer inaad soo kacdaan oo kacdoon shacbi ah oo kaa oromada oo kale u dhigma taa oromada lamaba gaadhsiinin oo duqsi iyaga lama gaadhsiin inay yihiin laakiin idinku duqsi ayuu ninka maanta meesha fadhiya uu idigu sheegay anuu wax dili kara duca qaadan maayo buu hore idigu yidhi raggii isaga jeelasha ka baxay kala baxayay ee xoreeyey weeye ragga duqsiga maanta lagu sheegayaa waa abaalkood haysdul yaalla buu yidhi waa doqon abaalkeedee horey soomaalidu tiri mar idage allaha dago mar labaad se idage aniga ayaa dagan waynu dagannahay 10 jeer ayaa layna dagay kacdoon shacib ah yaani laydigu mashquulinin oo mucaarad iyo muxaafid dadkan muxalalka aanay idigu mashquulinin meel aanay waxba ka jirin oo seerkal xidhan ah oo aydan dhan uga bixi kareen waaniga idii sharxay iyagana is sharxay waraaqoodii doorasho maaha in lagu soo dhaqaaqo dadka 10%-ga ama 8 ama 6%-ga waddanka ka atiradoodu malaa percent-keedan ila fahmine boqolka qof ee hargeysa taagan 6 bay ka yihiin 94 kale waa idinka iyo ummadda kale sidee bay kuwaas idii xukuumada qoriyay gacan ku hayn karayaan waa in loogu soo dhaqaaqa sida maanta ay oromadu u soo dhaqaaqday ee arkaysan Addis Ababa iyo deegaankoodiiba sidee u gilgileen aydan sugin siyaasiyiinta jinka dagaagay aydan sugin tujaarta jinka dagaagday ah ee idinka lacagta idinka soo qaato idinka dadka ugu tiro badan idinka wax iibsado ugu badan idinka telefoonada gashada wixii ay ku celiseen tujaartani iyaga ayay dib u siiyaan si ay idigu korbiishaan maleeshiyadan la sheegayay recon force to recon ciidan laga cabsado ciidanka laga cabsado ama ka ragaysta ayeen xageebu ku maqnaa muxuu tu kibistu cunay u yaacay siyaasi ku sheega boqolaalka ah ee xanaanooyinka xoolaha idin fadhiya yaana idin degin nimanka mucaaradka sheeganaya ee inugu muxalalay ee inugu sharciyeeyay inay criminalka duqsiga inugu sheegayay ay la galaan in jeel la geeyo oo ama gacan wax lagaga qabto ayaa ahayd yaana inugu dagin mar dambe doorasho ayaa dhacaysa wax doorasho la yiraahdo oo meeshan ka soo socota ma jirto wuu soo iibiyay imikana dawlad subeer awala ayaa sidii Djibouti maalinta loogu soo qaatay dawlad subeer awala oo Soomaaliland iyo lacag lagu soo kor samaystay ayaa mar labaad federaal maamul goboleed subeer awala oo idigu soo kor qaatay waxaana la idigu mashquulinayaa waxa la idii qabanayaa doorasho iyo digdig waa in arrinta la yeelin ee dhalinyarada shacabka ay aragtaa ee waddanka degan ama samaroon maanta haato ama kuwii lagu guuray markii hore maryaaloolka la ahaa ee laha laga qariyo iyaga cashuur baa laga qaadayaa dhammaantood inay shacabkoodu soo baxaan oo waliba dhalinyaradu soo baxdo sida ay u soo baxday oromadu oo la isa soo taago oo la diido 30 sano oo dambe oo dhiigooda lacag foolsa lagu mirto oo dollarka lagaga qaato cashuuraha isaga sameeya cashuur iyaga lagaga qaado jeelasha ay ka buuxaan idaacadaha laga xarimo shaqooyinka laga xarimo lagu faalo dhiigooda inay duqsi yihiin oo sida duqsiga loo laayay waa halka u dambaysa ee qofka bini aadanka la gaarsiiyo walaqad karamna bani aadana subhanahu wa ta'ala baa yiri duqsiba idinku aan noqoteen maydaan noqonin xitaa waa arkaysaa sida hadalka loo qoray waa dheeldheel iyo chess remarked characteristically sida ku taqaaneen isaga ayaa hadalkaa igu yiri isagoo chess ka dhiga waa ninkii kale ee yiri waa in ceelashooda la soo subeeyo xoog wax la idinka qaadin ee jinka dagaagay intaas oo la soo kaxeeyay ayaa la idin mar waayo meel u dhaqaaqo in Xaaji Ibrahim cigaal waaye jinka dagaagay ee maanta idin hor socda ee dhan walba leh ee tujaarta leh ee mucaaradka leh ee muxaafadka leh ayaa maalintaana dhiigiina ka dhayaan mushtaray oo in cigaal oo wax lagu cuno hargeysa iyo burca la waayo oo dibadda ka yaala oo cararay boorame inuu nafta kula dhunto dib idigu soo celiyay mar labaadna idigu kor doortay kana idigu sharciyeeyay oo idigu keenay hadalkayga waxaan ku soo gunaanadayaa gunaanad iyo gabagabo kacdoon shacbi ummadda halkaa deganay waa la idin soo iibsaday waana aragtaan meesha la idiga taagayay kuwa kalena hadalkooda bay iska daamarka garxajis halkaa la gaadhsiiyey waayo kuwa kale haddii garxajis madaxa lagu dhufto way ogyihiin aanay waxba gaadhsiin karaynin maanta nasiib wanaag way idin wada cadday dadka meesha joogaana dhalinyaro ayaa wada tihiin ma aha inaad jinka dagaagay ee cimaamadaha idii xidhay jinka dagaagay ee axsaabta idii sheegtay jinka dagaagay ee tujaarta idii sheegtay jinka dagaagay ee siyaasiyiinta sheegtay xanaanooyinka xoolaha fadhiya inay horgalaan ay dhalinyaro mustaqbalkiini lumiyaan meel madow ayaa ku sii socotaan 30 sanadood oo dambe oo la iska dhaxlo oo lacagta forgery la idugu walaaqo ayaa diyaar loo yahay
dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin nooli kulantee ha laga kaco